الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وزير الدولة وزارة القاشادق تريها عيدا كحوق الدولة الصومالية، تريها عيدا كبضة سخرياج سراكيش الدحاء كوا هوسه سراكيل حجينada dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda maamulida saxaafadda qof walba halkaan fadhiya iyo mansabka iyo protocolku ku fadhiyo waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaam kadib wasiir iyo golow inaan dul istaago munaasabada maanta aynu u fadhinaa halkan ee ku astaysan xil wareejinta taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka dhulka. wasiir taliye runtii muhiimad gaar ah ay leedahay inaan maanta hortiina soo istaago si rasmi ah aan uga wareego xilka la igu magacaabay ee ah taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo dareensan inay tahay mas'uuliyad weyn oo aad u ballaaran. waxaan hortiina iyo horta Ilaahay hortii ku ballan qaadayaa in waajibka dastuuriga ah wadaniga ah ee la dhiibay aan u guto sida ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta. mudana wasiir taliye sareeyayaal dhammaantiin waxaan ogsoonahay in mas'uuliyadda ay tahay arrin aad iyo aad u weyn adduunyadana ay tahay haddii aanan lagugu gargaarin oo aan lagugu garabgelin midna daamaha dhibaato ah aakhirana shallaay ah. sidii xadiiska ku timid xadiisku macnihiisu ahaa war ha weydiinin mas'uuliyad inaad qaato maxaa yeelay adduunyadu waa khasaar aakhirana waa nadaamo. ilaahay inuu yiri subxaanahu wa ta'aala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa-abayna an yahmilnaha fa-hamalaha al-insan. amaanada waxaan u bandhignay cirkii dhulka way diideen cirkii dhulka oo aad ogtihiin inta uu maaskooda iyo mugoodu yahay inta ay fidsan yihiin inta ay leeyihiin bini aadan daciif ah ayaa qaaday mas'uuliyadda innahu kaana daruuman jahuula waa mid dulmi badan haddana jaahilnimo badan. sidaa darteed bini aadan baynu nahay mas'uuliyadda inaan boqol ka soo baxno waa mustaxiil ma adka laakiin waxaan aaminsanahay haddaan isgarab galno aan nin walba meesha shaqada uu ka leeyahay qof walba meeshuu shaqada ka leeyahay ka qabto mas'uuliyadda madaxdiina loo dhiibay iyo taliyaashiina da'doodu iyo khibradooda iyo aqoontooda ha gaabnaatee waxaan isleeyahay in la gaari doono ujeedooyin waaweyn nidaamka iyo qaabka maanta ciidankeenu u yaallana wax badan laga bedeli doono. sababtaan sidaa u leeyahay waxaa weeye annagu idinkoo libaaxyo Afrika sareeyayaasha raalliga ahaada libaaxyo Afrika soo ma gaarin inkastoo ehelad ciidan aynu nahay oo ciidanka aan xiriir aniga gaar ahaan la leeyahay laakiinse ma arki jirin oo history bay ku tahay waxyaabaha literature la yiraahdo markii laga hadlayna waxaabaan ahaan jiray waxaabaa jiri jiray markii lagu yiraahdo wixina aysan ku muuqan ay hadda taagneen inaan nolosha caadiga ku dabaqday aad bay u adag tahay. anoo ictiraafsan juhdigii dadaalkii dheeraa ay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waqtiyadii kala duwanaa ay ku soo bixiyeen difaaca dalka ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dalka. laakiin walaalayaal waxa maanta noo yaallo waa wixii aad arki jirteen wax ka duwan. waxaa noo yaalla dagaal abaabulan oo isdiyaariyay intaan qabiil isku dilay inta Soomaalida ay kala qaybsaneen SPM SNA SQS iyo qashin la waday nimanka waa isaga abuulayeen Kemboni iyo kudhaa iyo qashin bay wadeen dadka buwaagta akhriyo way garanayaan
إلى واقع ستون يستوقفوا قربي سومالي لا تبري تكتيك يوحول ما أنت وحيوبا أنت هاي عيدا دقائق كره سيدا يطلع بسنا يوم كلا يطلع بسنا كره أوله ما له يجوان أوجلا وحنقول هذا أنا عيدا كنا عصوا خلاص إن شاء الله تعالى أنا بقول شقينا إن تلمامها واجباتك هي أركتي التريهات من نقول دونتين أنا إسكسر لبسنا أو أي وزارة إمامنا سداد إبرك كده من الكون طبعا كمان كل جارة كتر ما ده نوع أصدر لكم الدفاع شغالة عن لا إنها هدف كأنه لا إنها كما ترجمة يصير عن جاري كنا قاب كصديق أو شقيق أيضا مناسبة فربنا عن كهذا عن قوة هذا الدور نكون الشركة يصدقنا إن شاء الله تعالى وعن وركي كسر جنانو ذي وركي أي رهدين هو الله فرسان ها gaashaankii waxa tihiin gayiga Soomaaliyeed nin xalqaaday ee qaad ku biirida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed disbilinka waxa noogu qoran waa nin iyo ikhtiyaarkiis nin allaale ninkii ciidanka xoogga dalka soo qortaay ha u diyaar garoobo mashaqo iyo dib waa dynamicska uu qofka askariga ah ugu bedelan yahay qofka civilianka ee shacbiga sidaas darteed mas'uuliyadaas من جديد إلى جنرال ويقدرس أنا وضع شقينه أنا إلهي درس عرنه إلهي وحكي الجيني سبحانه وتعالى إنه نقول إن أنا كقول يسمنه دناها الله إنه ينجارنه أمنجا إن بالجريدة الصومالي أنا كقول يسمنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله